السلام عليكم dhamaantiin saaxiibada sharafta badan. Filimku wuxuu ku bilaamayaa wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Queen oo dhex maraya wadooyinka mashquulka badan ee London. Wuxuu yimid goob dhulka hoostiisa laga dhisayo oo ay hooyadii Karen ka shaqaynayso, ahna injineerka mashruucan. Sheeko kooban kadib Karen waxay u carartay si ay u xaliso arrin degdeg ahayd oo goobta ka jirtay. Queen wuxuu bilaabay inuu u dhaqaaqo guriga, laakiin wuxuu dhexda kula kulmay mid ka mid ah shaqaalaha dhismaha. Shaqaaluhu wuxuu ku xujeynayaa inuu galo tunnel mugdi ah. Queen-na si degdeg ah ayuu u aqbalayaa xujada. Tooshka ayuu qabsanayaa oo aayar buu gudcurka ugu baaba'aya. Intuu indhaindhaynayo marinka daahsoon, Queen wuxuu ugu dambeyntii ku arkayaa wax aad moodo gidaar oo naqshadaysan oo la yaab leh, dabna sii daaya marka la taabto. Wuxuu sii wadayaa inuu sahmiyo gidaarka dushiisa isagoo aan ogeyn inuu dhab ahaantii yahay qolfoofta adag ee Dragon-ka halista badan. Isla markiiba makhluuq ayaa ku soo tufay kubad dab ah, wuxuuna muujiyay xajmigiisa weyn. Queen ayaa si degdeg ah uga soo baxay tunnelka isagoo la gilgishay kulanka argagaxa leh. Wuxuu isku dayayaa inuu qof walba uga digo Dragon-ka weyn ee mugdiga ku dhuumanaya, laakiin ka hor intaanay ka falcelin, dhawaq hoose oo xamaasad leh ayaa ka buuxsamay aaga. Makhluuqa ayaana ka soo baxay tunnelka. Meesha oo dhami wuxuu ku qarxinayaa holac daqiiqado gudahood. Queen iyo hooyadii waxay ku yaaceen wiishka si ay u baxsadaan. Nasiib daro, Dragon-kii ayaa la kacaya ololka oo si daran u weeraraya wiishka. Queen inkastoo uu cabsi darteed la gariirayo, haddana wuu ka badbaaday weerarka, laakiin hooyadii ayaa si naxdin leh ugu dhimatay halkaas. 10 sano ee ku xigay noocyo la mid ah Dragon-nada arxan-laawayaasha ah ayaa la wareegay adduunka oo dhan. Xayawaanadan bahalnimada leh ayaa sababaya qalalaase baahsan, waxayna la wareegayaan adduunka oo dhan, taasoo keentay in dadku ay qarka u fuulaan inay dabar go'aan. Muuqaalku wuxuu markaa u wareegayaa 20 sano kadib, taasoo muujinaysa in Dragon-nadu ay tiro ahaan yaraadeen. Si kastaba ha ahaatee, waxay noqdeen kuwo aad u dagaal badan markay ugaarsanayaan khayraadka yar ee cuntada. Queen wuu qaangaaray oo hadda wuxuu hogaamiyaa koox ka badbaaday weerarada socda ee Dragon-nada. Si wada jir ah waxay samaysteen gabaad dhulka hoostiisa ah, qalcadda cidlada ah, halkaasoo ay kaga gabadaan khatarta aan joogsiga lahayn ee Dragon-nada. Badbaadayaashan ayaa dibadda u soo baxa marka loo baahdo oo keliya, sida inay ugaarsadaan cunto ahaan beeraha dhexdooda. Maalin maalmaha ka mid ah, Queen wuxuu qabtay saaxiibkiis Eddie iyo dhowr kale oo isku dayaya inay ka tagaan beeshooda. Wuxuu si adag ugala talinayaa inaysan tegin, isagoo ku nuxnuxsaday inay u nugul yihiin weerarada Dragon-nada. Eddie wuxuu ku dooday inay gaajo u dhiman doonaan haddii ay joogaan sahayda cuntada oo aan ku filnayn awgeed. Queen ayaa markaa sharaxaya in cunto yaraantu ay tahay mid ku meel gaar ah ilaa ay dalagyadu ka bislaanayaan, laakiin hadda inay dibadda u baxaan waxay noqon doontaa halis. Iyadoo ay jiraan digniinahaas, haddana Eddie wuxuu weli go'aansan yahay inuu u dhaqaaqo raadinta cunto, isagoo doonaya inuu wajaho khataraha ku wareegsan hooygooda. Subaxii xigay, Eddie iyo dhowr qof oo kale ayaa si taxadar leh ugu jihaystay beeraha. Waardiyihii manaaradda ayaa si degdeg ah u arkay dhowr Dragon oo soo socda, isla markiiba qalcadda oo dhan ayuu u dirayaa fariin digniin ah. Ka hogaamiye ahaan, Queen wuxuu si degdeg ah u abaabulayaa koox ka hortagta Dragon-nada xunxun. Waxa kale oo uu ogaaday in Eddie iyo kuwa kale ay ku maqan yihiin beeraha, oo wuxuu u ambabaxay hawl ah samata bixinta dadkiisa. Beerta dhexdeeda, kooxda Eddie waxay arkeen Dragon-kii oo meel fog ka soo socda. Dragon-ka ayaa hoos u soo degay oo soo tufaya kubado olol ah ka hor intaysan isqarin. Tani waxay dab qabadsiisay beertii oo dhan, waxayna si dhaqso ah u garteen inay ku xayiran yihiin ololka. Isla markaas, Queen ayaa yimid isaga iyo raggiisii, wuxuuna amray in dabka si degdeg ah looga damiyo dhammaan beerta. Sidaas waxaa lagu samaynayaa iskuday quus ah si ay u qariyaan joogitaankooda, iyadoo qiiq qaro weyn uu ka qarinayo Dragon-ka inuu arko iyaga. Si kastaba ha ahaatee, falkani wuxuu sidoo kale si buuxda u baabi'inayaa kaydkooda cuntada. Queen ayaa markaa si degdeg ah u soo galay beerta isagoo xiran qalabkiisii difaaca, wuxuuna si degdeg ah dadkiisii ugu soo celiyey baabuurkiisa. Intay meesha ka sii baxayaan ayaa Dragon-kii jid gooyay oo si foolka fool ah uga hor yimid. Makhluuqa ayaa sii daynaya dab aad u xun oo qabsaday wiilka Eddie, kaasoo aan weli gaarin baabuurka. Kooxda ayaa si degdeg ah u laabatay oo u carartay jihadii ka soo horjeeday, iyagoo ka qustay inay u baxsadaan meel ammaan ah. Intaa kadib, dhammaan bulshada ayaa ka murugoonaysa geerida naxdinta leh ee ku timid wiilka yar. Queen saaxiibkiis ugu wanaagsanaa, Creedy, wuxuu muujiyey sida uu uga xun yahay, waxaana uu ku dooday in go'aankii Eddie ee uu kaga tegay qalcadda uu u horseeday musiibadan. Queen waxa kale oo uu la qaybsanayaa niyad jabka, isagoo garanaya in ficilada Eddie aysan sababin dhimashada wiilkiisa oo keliya, balse ay sidoo kale sababtay burburka dhammaan kaydkoodii dalagga beerta. Waxay isku arkayaan inay la halgamayaan murugada iyo sidoo kale xaqiiqooyinka qalafsan ee jiritaankooda nugul ee dunida ay ka taliyaan Dragon-nada. Subaxii xigay, kolonyo baabuur ah oo gaashaaman ayaa soo gaaray banaanka qalcadda. Creedy iyo kooxda amniga ayaa u soo dhawaaday oo hogaamiyaha Van Zandt ayaa ka soo baxay gaarigiisa gaashaaman. Wuxuu codsanayaa inuu la kulmo mas'uulka. Daqiiqado kadib, Queen ayaa yimid si uu ula kulmo Van Zandt, kaasoo baray kooxdiisa inay yihiin ugaarsatada
tirada daraagoonada. wuxuu shaaca ka qaaday inay si firfircoon u ugaarsadaan daraagoonada oo ay wadaan howlgal ay adduunka kaga nadiifinayaan daraagoonada khatarta ah. Van Zandt wuxuu weydiistay in isaga iyo asxaabtiisu ay gabaad ka dhigtaan qalcadda si ay u soo kabtaan oo ay u soo ceshadaan hubkooda. Queen weli wuu shaksan yahay oo wuu diiday inay sii joogaan. suu u caddeeyo sheegashadiisa, Van Zandt wuxuu soo saaray ilig af leh isagoo sheegay inuu shakhsi ahaan ka adkaaday Dragon intii uu ku guda jiray ugaarsiga oo uu iligii kala soo baxay. waxa kale oo uu shaaca ka qaaday in daciifnimada ugu weyn ee daraagoonada ay tahay aragooda oo liita waqtiga gabaldhaca, waqtigaasoo uu u yaqaano waqtiga fursadda. markuu arkay caddaynta, Queen wuxuu u ogolaaday inay joogaan, laakiin wuxuu si adag uga digay inaysan wax dhibaato ah ka dhex abuurin bulshadooda. kadib markii ay yimaadeen kooxda cusub, waxay gudaha qalcadda la soo galayaan baabuurta gaashaaman, halka duuliyahoodii Alexandra ay ku duulayso helikobtarkeeda. intay gudaha u galayaan ayaa Queen wuxuu farayaa Creedy inuu isha ku hayo oo uusan manaaradda ka soo dejin ilaaladooda. dabadeed waardiyihii aaga ilaalinayay ayaa arkay Dragon kale oo cirka kor ugu kacaya. isla markiiba wuxuu diray fariin digniin ah, isagoo labada kooxoodba u horseeday inay isu yimaadaan si ay isugu diyaariyaan dagaal kale. intaas kadib 3 nin ayaa lala soo diray mooto si ay u gaaraan halka ay doonayaan inay ku ugaarsadaan Dragonka. shaqadoodu waa inay ka hormaraan kooxda oo ay beeraha ku rakibaan qalab raadaar oo kale ah, halkaasoo la filayo inay daraagoonada ka soo muuqdaan. qalabku wuxuu ka kooban yahay 3 tiir oo loo habeeyey qaab 3 xagal ah, waana in si taxadar leh loo meeleeyaa si loo ogaado jihooyinka. 2 ka mid ah mootaaleydu waxay si guul leh aaladda u geynayaan goobtii loogu talagalay. si kastaba ha ahaatee, darawalka 3aad ayaa la kulmay shil, wuxuuna si naxdin leh u luminayaa naftiisa ka hor intuusan dhammaystirin howlgalka. Van Zandt wuxuu isku dayay inuu la xiriiro xubinka 3aad, laakiin ma helin wax jawaab ah. dhanka kale, Alex iyo kooxdeeda waxay ku dhaqaaqeen helikobtarka si ay uga hortagaan Dragonkii. Dragonka ayaa si lama filaan ah uga soo muuqday gadaashooda, laakiin waqti yar ayuu ku libdhay oo galay hawo khafiif ah. kooxdu waxay aragiisa waayeen Dragonka, kadibna si ujeedo la'aan ah bay u dhaqaaqayaan iyadoo qalabka raadaarka si buuxda loo rakibin. nasiib wanaag, Queen ayaa u kuurgelaya dhacdooyinka soo ifbaxaya oo si degdeg ah u arkaya mootaalaha 3aad. wuxuu isticmaalayaa qalabka isgaarsiinta suu ugu sheego Van Zandt natiijada naxdinta leh. Van Zandt ayaa markaa ku hagaya halka uu ku lahaa raadaarka 3aad, wuxuuna ku guulaysanayaa inuu mashiinka dhigo goobta saxda ah. dhanka kale, Alex iyo kooxdeeda waxay helayaan muuqaal, isla waqtigaasna waxay arkayaan Dragonkii oo ku soo socda. kadibna waxay faraysaa mid ka mid ah xubnaha kooxdeeda inuu istuuro oo uu ka mashquuliyo Dragonka. ninkii ayaa qalabkii qabsaday oo ka booday helikobtarka si uu dareenka Dragonka u soo jiito. istiraatiijiyadu waa lagu guulaysanayaa markuu Dragonku bedelo hadafkiisa oo uu u lexdo dhanka ninka. kadib wuxuu furayaa baarashuudkiisii oo si badbaado leh uga soo baxsaday Dragonkii. waxyar kadib 2 nin oo kale oo ka tirsan kooxda Van Zandt ayaa ka soo booday helikobtarka si ay Dragonka shabag ugu qabtaan, laakiin makhluuq ayaa si dadaal la'aan ah isaga furay oo u cunay mid ka mid ah ragga. mid kale ayaa ku guul daraystay inuu furo baarashuudkiisii, isla waqtigiina wuxuu si xun ugu dhacay dhimashadiisa. Queen wuxuu helay in Dragonku uu hadda u soo socdo buurta uu saaran yahay. Van Zandt ayaa markaa la xiriiray isagoo u soo jeediyey inuu mashquuliyo Dragonka, isku daygii ugu dambeeyey ee uu kaga adkaan lahaa Dragonka. Queen wuu aqbalay isagoon ka labalabayn, wuxuuna u dhaqaaqay dhanka bahalka. waqtiga xasaasiga ah, Van Zandt wuxuu ku guulaystay inuu toogto makhluuqa oo ugu dambeyntii hoos u soo dejiyo. dagaalka kadib, Queen, Alex iyo Van Zandt ayaa isu yimid si ay uga wada hadlaan tallaabooyinka xiga. Alex waxay la wadaagtay sirteeda ah in dhammaan daraagoonadii ay dileen ay dhadig ahaayeen. waxay qiyaasaysaa in daraagoonadu ay si degdeg ah u tarmayaan, iyagoo ku tiirsan hal lab si u bacrimiyo ukumo badan. waqtigaas, Van Zandt wuxuu sheegay howlgalkiisa soo socda oo ah in la raadiyo oo la dilo Dragonka labka ah si ay u baabi'iyaan dhammaan daraagoonada. wuxuu soo jeediyey inay u ambabaxaan London si ay u dilaan Dragonka, kaasoo la rumaysan yahay inuu halkaas ku dhuumanayo. Van Zandt ayaa markaa ku casuumay Queen iyo kooxdiisii inay ku soo biiraan ciidamada howlgalkan. si kastaba ha ahaatee, Queen wuu diiday isagoo ka walaacsan in ugaarsiga Dragonka labka ah uu ku kicin karo makhluuqa inay ka argoostaan, mana doonayo inuu halis dheeri ah geliyo nolosha dadkiisa. isagoo niyad jabsan, Van Zandt ayaa soo booday oo isku keenay nimankii labada kooxood suu ugu fuliyo howlgalkooda. dibadda, Queen wuxuu ku degdegay inuu ka hortago, isagoo Van Zandt khudbad qiiro leh u jeedinaya suu u kiciyo xamaasadda ragga. xiisadda ayaa si degdeg ah u sii korortay, taasoo keentay iska hor imaad xooggan oo labada hogaamiye dhex mara. Van Zandt kama labalabayn inuu Queen ku sii daayo xanaaqiisa. si naxariis daro ah ayuu u weeraray ilaa ay Alex timid si ay u dhex gasho oo ay u kala saarto. intaas kadib, Van Zandt wuxuu sii waday inuu la baxo ciidamadiisa isku dhafan oo ka kooban labadaba raggiisa iyo kuwa laga soo diyaariyey kooxda Queen. waxaa weli ka go'an inay ugaarsadaan oo ay dilaan Dragonka labka ah ee awoodda badan oo ay soo afjaraan xukunkii argagaxa
lahaa mar uun. dhanka kale Queen wuxuu arkayaa ardaygiisa Jared oo isu diyaarinaya inuu raaco Van Zan. wuxuu isku dayayaa inuu ku qanciyo inuu joogo qalcadda khatarta howlgalka awgiis. si kastaba ha ahaatee Jared si qabow ayuu ugu jawaabay oo u sheegay Queen inaanu ahayn aabihiis. kadibna wuxuu ku biiray ciidanka wuxuuna u kicitimay London si uga hortago Dragonka labka ah. markuu aasku madoobado Queen wuxuu agagaarka qalcadda si istiraatiiji ah u dhigayaa lafaha Dragonka. waxaa la sheegay in Dragonadu ay necab yihiin urka ehladooda dhintay, waxayna taasi ilaalin kartaa goobta in muddo ah. waxaa la yaab leh in Jared uu go'aan ku gaaray inuusan ku biirin ciidanka cusub oo uu dib ugu soo laabto qalcaddii. meel kale Van Zan iyo kooxdiisu waxay gaareen magaalo u dhow oo ay burburiyeen weeraradii Dragonada. jidka waxaa ka xiray burbur ku qasbaya inay istaagaan. Alex oo saaran helikobtarkeeda ayaa loo xil saaray inay soo indha-indhayso aagga si ay u soo raadiso waddo kale. si lama filaan ah qarax ayaa ka dhacay meel fog. Van Zan wuxuu si degdeg ah u soo ururiyay raggiisa. waxay kor u qaadayaan hubkooda iyagoo isku diyaarinaya inay ka hortagaan khatarta. sida la filayo Dragonada waxay yimaadeen waxyar kadib. Van Zan wuxuu ku amray raggiisa inay xabad ku furaan noolaha soo socda. ciidanku waxay furayaan rasaastooda, laakiin Dragonkii ayaa daqiiqado gudahood ku qariyay olol isagoo garwaaqsaday inaysan jirin waddo ay dib ugula dagaalamaan. Van Zan wuxuu ku gabaday gaarigiisa suu isaga difaaco weerarka dabka ah. Alex waxay ku soo noqotay goobta oo ogaatay in Van Zan uu yahay kan badbaaday oo keliya. wuxuu xaqiijinayaa in Dragonka labka ah uu mas'uul ka ahaa weerarka oo uu ka cabsi qabo inuu hadda ku sii jeedo qalcadda. dabadeed Dragonkii wuxuu yimid hoyga oo wuxuu sii daynayaa neef dab ah oo xun. Creedy si dhaqso ah ayuu u dhaqmayaa wuxuuna qof walba u daadguraynayaa meel nabdoon oo dhulka hoostiisa ah. Queen si waali ah ayuu dib ugu soo yaacay, balse wuxuu la kulmay hoyga oo holcaya. inta lagu jiro fawdada, Creedy wuxuu ku xayirmay dabka. Queen wuxuu si ba'an isugu dayay inuu samata bixiyo, laakiin Creedy si naxdin leh ayuu dabka ugu dhacay. dhacdooyinka naxdinta leh kadib Queen, Van Zan iyo Alex waxay ku sii jeedaan London si ay u soo booqdaan Dragonkii labka ahaa. waxay arkeen magaalo cidlo ah oo ay buux dhaafiyeen boqolaal Dragono oo dhadig ah, kuwaasoo mid ka mid ah uu Dragonkii labka ahaa uu cunay gaajo darteed. si lama filaan ah Dragonka labka ah ayaa sii wadaya qaylo, taasoo keentay in Dragonada dhadiga ah ay kala firdhaan cabsi darteed. Dragonkii hadda wuxuu nool yahay keligiis oo isma difaaci karo, taasoo siinaysa saddexda fursad ku habboon inay weerar ku qaadaan. Queen oo yaqaanay London tan iyo caruurnimadiisii wuxuu ku hagayaa kooxda goobta dhismaha. Van Zan ayaa markaas soo bandhigaya xeeladooda oo ah inay qaybin doonaan ciidamadooda si ay Dragonka u soo jiitaan suu u soo weeraro iyaga, waxayna si toos ah afka ugu ridi doonaan falaaro qarxa markuu neefsado. si degdeg ah ayay u gabanayaan oo ugu diyaargaroobayaan fulinta qorshahooda markuu xayawaanka halista ah uu hoos u soo dego. waxyar kadib Dragonkii labka ahaa ayaa yimid oo Queen ku arkay dhulka. wuxuu la beegsaday weerar kulul, laakiin si dirqi ah ayuu uga gaashaantay weerarka. Alex dabadeed waxay soo jeedinaysaa Dragonka oo ay si guul leh ugu soo jiiday xagga manaaradda siduu qorshuhu ahaa. si kastaba ha ahaatee Dragonku wuxuu si degdeg ah dareenkiisa ugu soo jeedinayaa Van Zan, kaasoo isku dayaya inuu falaar qaraxda afka uga toogto, balse la waayay. isku daygan guul daraystay ayaa ka sii caraysiinaya Dragonka oo wuxuu sii daynayaa qaylo aad u xoogan isagoo garwaaqsaday inuusan haysan wax rasaas ah. Van Zan wuxuu miciin biday inuu faaskiisa dagaalka u isticmaalo hub ahaan. dabadeed wuxuu si go'aan leh ugu soo booday Dragonkii, laakiin Dragonka ayaa ka adkaaday oo wada cunay. dhanka kale Queen wuxuu gartay inay ka daateen falaaraha qaraxa intii lagu jiray weerarkii hore. Dragonku wuxuu sii wadaa inuu hareerihiisa oo dhan ku tufo dabka, halka isaga iyo Alex ay ku guulaysteen inay helaan meel cusub oo ay ku dhuntaan. isla markiiba Queen wuxuu falaaraha ku arkay gaari xamuul ah agtiisa oo u soo orday xaggooda. Dragonkiina si dhow buu u daba socdaa. dhaqdhaqaaq dhiiranaan leh Queen wuxuu Dragonka si sax ah ugu qabanayaa qaansada, isagoo Dragonkuna isu diyaarinayo inuu neefsado dabka. kadibna falaarta ayuu si toos ah ugu sii daynayaa dhunta Dragonka, taasoo keentay qarax xoogan. iyagoo nafis ku eegaya bahalkii ugu dambeyntii wuu dhacayaa. filimku wuxuu soo idlaaday iyadoo Queen iyo Alex ay ku soo noqdeen qalcaddii iyagoo go'aansaday inay sameeyaan meel ammaan ah oo xor ka ah argagaxa Dragonada. muuqaalka halkan ayuu ku egyahay. fadlan taabo subscribe iyo like haddaad jeceshahay muuqaaladan oo kalena kommentiga hoose noogu reeb. kulanti dambe oo aad u xiiso badan. mahadsanid.